waxaa soo baxaya faahfaahino dheeraad ah oo ku saabsan gabar yar oo lagu dilay meedkeedana lasoo dhigay xaafad ka mid ah magaalada Gaalkacyo. gabadhan oo magaceeda la oran jiray Caasho Ilyaas Aadan oo ahayd 12 sano jir ayaa waa berigi saaga lasoo dhigay meedkeeda afafka hore ee guriga ay qoyskeedu ka degan yahay magaalada Gaalkacyo. gabadhan ayaa la waayay shalay subax oo adeeg ay qoyskeeda u doontay, waxaana shalay oo dhan laga baafinayay idaacadaha magaalada Gaalkacyo iyo waliba baraha bulshada. meedka gabadhan ayaa la sheegay inay ka muuqday nabaro sheegaya in fal anshax darro ah lagula kacay kadibna ceejil lagu dilay. wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada booliska magaalada Gaalkacyo ay wadaan baaritaan la doonayo in lagu helo dadkii ka dambeeyay dilka gabadhan. booliska ayaa la sheegay in ay heleen warar sheegaya in gaari yar oo 2 lambar kaliya leh meedka gabadha uu dhigay afafka hore ee guriga qoyska gabadha la dilay. guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa si weyn looga hadalhayaa dilka gabadhan iyadoo ay tahay markii ugu horeysay ee fal noocan oo kale ah uu ka dhaco magaalada Gaalkacyo.